Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada saaxiibayaal warbixin ku saabsan qaab samaysanka dooxada Rift Valley. dooxada Rift Valley. dooxada weyn ee Rift Valley waa taxanayaal dooxo ah oo isku xiran, kuwaas oo gaaraya qiyaastii 7,000 kiiloomitir dherer ahaan, kuwaas oo taxan laga bilaabo waddanka Lubnaan ee qaaradda Aasiya ilaa dalka Mozambique ee koonfur-bari Afrika. Rift Valley waa magac ay caan ku tahay dooxadan weyn, taas oo marta qaaradaha Afrika iyo Aasiya, waana magac loo yaqaan juqraafi ahaan. balse maanta ereygan waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu tilmaamo dooxada bariga Afrika. xuduudaha kala duwan ee soodinta, kaas oo kasoo bilaabma isgoyska canfarta ee koonfur-bari Afrika, waxayna ku socotaa habka loo kala qaybiyo baleed Afrika iyadoo laga dhigayo 2 saxan ama 2 qaybood oo kala duwan. cilmiyaqaanada geologiga guud ahaan waxay u yaqaanaan taariikhdan bilowga ah sida baleed Nubian iyo baleedka Soomaaliga marka loo fiiriyo qaab samaysanka dooxada Rift Valley. maanta jaxjaxyadan iyo go'go'an waxaa loo arkaa inay kala duwan yihiin, inkastoo ay isku xiran yihiin, laakiin asal ahaan Great Rift Valley waxaa la sheegay inay tahay hal qayb oo ku fidsan Lubnaan oo ku taala waqooyiga ilaa Mozambique oo ku taala koonfurta, halkaas oo ay ka kooban tahay mid ka mid ah 2 gobol oo kala duwan buuraha bariga Afrika. waxaana ka mid ah waxa maanta loo yaqaan qaybta Lubnaan ee isbeddelka badda dhimatay iyo Jordan Rift Valley, Rift Sea iyo dooxada bariga Afrika. samaysanka dooxooyinkan ayaa ah mid u laabanaya asal ahaan 35 milyan oo sano ka hor taariikhda bini'aadamka Afrika iyo Aasiya. qaybta waqooyi ee Rift waxay u dhigantaa qaybta dhexe ee maanta loo yaqaan badda dhimatay ama DST Rift. qaybtan dhexe ee DST waxay samaysaa dooxada loo yaqaan Beqa ee dalka Lubnaan, taas oo aad ugu dhow buuraha Anti-Lubnaan. dhanka koonfureed waxaa loo yaqaanaa dooxada Huula ee kala qaybisa buuraha Galiil iyo buuraha Golan. webiga Urdun wuxuu ka bilaabmaa koonfurta isagoo dhex mara harada Huula ilaa badda Galiili ee dhulka Falastiin. Riftu waxay ka sii socotaa koonfurta iyadoo sii marta webiga Urdun ee Rift Valley ilaa badda dhimatay ee ku taala xadka Falastiin iyo waddanka Jordan. laga soo bilaabo badda dhimatay ee dhinaca koonfureed, Rift Valley waxay ku dhowdahay waadiga loo yaqaan Caraba, kadibna gacanka Caqaba, halkaas oo ay uga sii xiriirto badda Cas iyadoo gees uga baxsan cirifka koonfureed ee Sinai oo ku yaala badda Cas. isbeddelka DST ama badda dhimatay waxa uu xiriir leeyahay riftiga badda Cas, kaas oo ku dheersan xeebta badda. dooxadan ayaa u soo daadegta xeebta si ay ula kulanto riftiga bariga Afrika iyo gacanka Cadan, kaas oo kaabiga ku haya deegaanka canfarta ee bariga Afrika. meesha iska galaan 3 jeex waxaa lagu magacaabaa isgoyska 3-4 ee Afrika. dooxadan Rift Valley ee bariga Afrika waxay daba socotaa badda Cas ilaa dhammaadkeeda ka hor intaysan gudaha u soo gelin dhulka sare ee Itoobiya, iyadoo dalalka u kala qaybisa 2 gobol oo waaweyn iyo kuwo isku xiga balse kala duwan oo buuraley ah: Kenya, Uganda iyo cirifyada koonfurta Suudaan. dooxada waxay u socotaa qaab 2 laamood oo kala duwan ah oo midba midka kale u dhow yahay kaliya cirifyada koonfureed.
koonfurta Tansaaniya oo ku taala xadka u la wadaago Zambia. Labadan qaybood waxaa lagu magacaabaa Western Rift Valley iyo Eastern Rift Valley. galbeedka Rift oo sidoo kale loo yaqaan dooxada Albertine waxaa xuduud la qaar ka mid ah buuraha ugu sarreeya Afrika oo ay ku jiraan buuraha Virunga, buuraha Mitombo iyo Rwenzori. waxayna ka kooban tahay harooyinka Rift Valley oo ay ku jiraan qaar ka mid ah harooyinka ugu qotada dheer adduunka, kuwaas oo gaaray 1470 mitir oo joog ah, sida harada Tanganyika. inta badan aaggan waxaa ku yaalaan xuduudaha seerayaasha qaranka sida Virunga National Park ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, beerta qaranka ee Rwenzori iyo beerta qaranka Queen Elizabeth ee dalka Uganda, iyo beerta qaranka Volcanoes ee dalka Rwanda. Victoria waxaa loo arkaa inay qayb ka tahay nidaamka dooxada Rift Valley, inkasta oo ay dhab ahaantii u dhaxayso labada laamood ee dooxada Rift. dhammaan harooyinka waaweyn ee Afrika ayaa sida la qiyaasayo ka samaysmay dooxada Rift, iyadoona sabab u tahay dilaaca dhulka. badankoodna waxay ku yaalaan dhulka kala go'a ee dooxada. waddanka Kenya, dooxadan ayaa marta waqooyiga caasimadda Nairobi. maadaama harooyinka ku yaal bariga Afrika aysan lahayn meel ay badda ka galaan oo ay u janjeeraan inay noqdaan kuwo qoto dheer, waxay leeyihiin maado macdan ah oo sarreysa maadaama uumiga biyuhu ka tago milixda. tusaale ahaan, harada Magadi waxay leedahay xaddi badan oo sodium carbonate ah, iyo harada Elemented, harada Bogoria iyo harada Nakura dhammaantood waa alkayn adag. halka ilaha biyaha ee saafiga ee siiya harada Nafesha ee lama huraan u yihiin inay taageeraan noocyada noole ee hadda jira. qaybtan koonfureed ee Rift Valley waxaa ka mid ah harada Malawi oo ah biyaha saddexaad ee ugu qotada dheer adduunka, kuwaas oo gaaray 706 mitir, taas oo ka soo qulqusha Nyasa Plateau ee waqooyiga Mozambique, waxayna ku dhammaataa dooxada Zambezi. la soco qaybta labaad ee dooxada Rift Valley.